Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka Soomaaliyeed iyo Muslimiinta caalamka ugu hambalyeeyay maalmaha barakeysan ee Ciidul Carafo oo ah munaasabad qiimo weyn ku leh diinta Islaamka. Madaxweynaha ayaa Alle uga baryay xujayada Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka in uu ka aqbalo acmaasha suuban, isagoo ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay badiyaan maalmaha barakeysan ducada iyo allabariga ku aaddan horumarka dalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muujiyay sida uu uga murugsan yahay xaaladda nololeed ay la tacaalayaan kumanaanka qoys kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha ka jira dalkeena, waxa uuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay farxadda ciidda la qaybsadaan dadkooda dhibaataysan. Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay in sanadkan kan xiga ku gaaraan horumar, barwaaqo, amni iyo xasillooni, isaga oo kula dardaarmay in gacmaha is qabsadaan, qalbiyadana isu furaan.